ninkan cadaanka ayaa kasoo degaya dabaqa, markaas ayay naagtani si lama filaan u joojisaa socodkeeda oo u istaagtaa sidii taallo oo kale. waxay ilmaheeda u tilmaantaa inuu aamuso, wuxuuna aabihiis ka codsadaa inuusan dhaqaaqin gebi ahaanba. ninkan kalena wuxuu khamri u shibayaa saaxiibtiisa, laakiin dadka kale waa ay taagan yihiin, dhaqaaqna ma leh. kooxdan ciyaaraysa kubadda cagta iyaguna way istaageen, xitaa wiilkan yar uu joojiyaa dhaqaaqiisa, sababtuna waa ninka cadaanka dartiisa. ninkii cadaanka ahaa wuxuu marka hore eegaa ninkan iyo wiilkiisa, kadibna wuxuu u dhaqaaqaa haweeneydan cabsida qabta, wuxuuna istaagaa hortooda. markuu arko inaanay dhaqaaqayn, wuxuu sii aadayaa ninkan timaha dhaadheer leh, isagana wuu eegaa balse dhaqaaq ma leh, markaas ayuu ka tagaa. laakiin markaas ayaa wax khatara dhacaya. cayayaan ayaa kasoo baxa meel oo isku dayaya inuu galo isha ninkan timaha dhaadheer leh. ninku wuxuu isku daboolaa indhihiisa si aanu cayayaanka uga galin, balse dhaqaaqaas yar ayaa waxaa dareemaya ninkii cadaanka ahaa. ninka cadaanka ayaa si carari usoo laabta, wuxuuna gacantiis ku qabtaa cunaha ninka si uu u dilo. taas ayaa keentay in haweeneydii cabsi daraadeed u xararto, iyada oo la cararaysa wiilkeeda iyo ninkeeda, halka dadka kalena ay weli ay taagan yihiin sidii taalooyin oo kale. dhammaantood waxay ka cararayaan goobtaas. adduunkan waxaa ka buuxa niman cadaan ah oo cabsi badan, sidaas daradeed ha dhaqaaqin haddii aad rabto inaad noolaato.